ugu horeysay laga hirgeliyay degmada Bacadweyne ee koonfurta gobolka Mudug isla markaana ay hirgeliyeen dadka deegaanka ayaa waxaa munaasabada xarig jarka ka qayb galay mas'uuliyiin isugu jira dawladda federaalka Soomaaliya iyo Galmudug waxaana ugu horeyn munaasabada xarig jarka ka hadlay gudoomiyaha degmada Bacadweyne Axmed Daahir wuxuu u mahad celiyay dhammaan dadkii ka qayb qaatay hirgelinta saldhigga booliiska galay in lagu furo saldhigga degmada Bacadweyne aad iyo aad aan ku mahad celinaynaa soo dhawaada taliye waxa sameeyay dadweynaha degmada Bacadweyne oo iska kaashaday dal iyo dibad intaanay soo gaarsiiyeen ay la tahay galabta hadii dawladdu haday nala joogto qaybta hartay waxay la tahay in nagala wareegayaan hadii Ilaahay idmo ku xigeenka ciidanka booliiska Galmudug Cabdi Jaamac Cabdilla Xabeeb oo asna ka qayb galay munaasabada xarig jarka ayaa sheegay in ka booliis ahaan ay qayb weyn ka qaadan doonaan taabagelinta saldhigga booliiska degmada Bacadweyne waxaan rabaa inaan u mahad celiyo degmada reer Bacadweyne ee isku taxallujisay maanta inay meeshaan dhisto aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waa aasaaskii nabadgelyada waxaad bilowdeen meelaan nabadgelyo ka jirin nolol ma taalo waxaan ballan qaadayaa waxa biliiska Galmudug ay helaan inay helaan ay saldhigga kan inuu helo ugu dambeyntii waxaa munaasabada soo xiray wasiirka wasaaradda beeyada Galmudug Maxamed Xuseen Maxamed sidoo kale senator Abuukar Xaaji Cabdi oo kamid ahaa mas'uuliyiinta ka socotay dawladda federaalka Soomaaliya asagoo aad u bogaadiyay bulshada ku sugan degmada Bacadweyne ee gobolka Mudug waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay ahmiyad weyn maanta ama galabta aniga leh inaan qayb ka ahay mas'uuliyiinta dah furaysa saldhiggan cusub ee degmada Bacadweyne sida taliye Xabeeb uu sheegay taliye ku xigeenka dawlad goboleedka Galmudug haddaan nahay mas'uuliyiinta dawlad goboleedka Galmudug waxaan xoog saari doonaa hadii Ilaahay idmo saldhiggan baahidiisa iyo agabku u baahan yahay hadii Ilaahay idmo wax allaala waxaan ka qaban karno heer dawlad goboleed iyo heer dawlad federaal inaan gaarsiino baahidaasna wixii aan ka qaban karnaa aan ka qabanno saldhigga degmada Bacadweyne waxa farxad aad iyo aad lama filaan oo qalbigayga aad ugu weyn oo aan mahad uga celinayaa Ilaahay noo sahlay inaanu annagoo xur ah si xorriyad ku jirto aanu u furanno waxaan leeyahay walaalihii naga midka ahaa ee qurbaha deganaa kuwii waddanka joogay kuwii kaleeto intii ka qayb qaadatayba waxaan ogahay sidaan ugu faraxsanahay si ka badan in ugu faraxsanyiin marka waxaan idin leeyahay waa tilaabada koowaad aanu gaarno Caali Nurcayn Goobjoog TV gaalka